السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة المقال كيجا channel كعلم السيدة. ما أنت وحان عادن دورنا هدي على ودري وكرر النقطة مادة فيزيكس كلاس كفورمولكا عشرة دينا تحناها هاي كسبنا مادة سcientifica يعني باللوني منهج عصب. فضلا هدي على النقطة ستها channel كسبسكرايب صار كمبريل كفروق لكن إنه صار ساد إنه كل يرجلسه haddii uu muuqaalka ku anfacay haddii uusan ku anficin dislike inoo saar adoo xagga hoose nagu qoraayo faalahaan waxyaabahaas leeyahay ha laga bedelo channelka ama ha lagu soo kordhiyo sina share gareys asxaabtaada kale oo arkaan maanta waxaan toos ku bilaabanaynaa xiisadii koowaad ee maadada physics-ka class form 1 waxaan ka hadli doonaa chapter 1 class-ka physics-ka cutubka koowaad waxaan ku qaadan doonaa introduction to physics hordhaca laga sameyn doono maadada physics-ka ay ku qaadan doonaa hadii alla wadana oo karaale noqdo anagoo ku bilaabayna chapter 1 introduction-kiisa hadafkiisa koowaad ama qaybta koowaad ee aan ka bilaabayna waxay tahay meaning and branches of physics macnaha guud iyo laamaha uu qaybsamo physics waxaan ka bilaabaynaa physics muxuu yahay intees uu qaybsamaa intee branches uu qaybsamaa physics-ka labadaas qaybood ayaan ka bilaabaynaa ورينا كورينا meaning physics كما معناها جود ولا physics كقيبسكيس أما قيبنتي سنتان لجارة قيبت كواد أنا كورينا ومعناها جود physics أولا مرة روح قيب كي هاي مادة أو حراء وسوق هاتي دكسيجن حاكو صامرتين بدن أردادو إكو هاتان ساينس كأي قاعدتان كسبوها وعلم اللي جبرت نالها إما نالها يا الجبرناي وها ساينس is the study of living things and non-living things هذا لكن مركز سكندري سو قارت معنا ساينس وحنا قبلنا لما قيبات وكلا biological science iyo physical science yaa loo qaybiyaa markii la joogo dugsiga sare science lama soo qaybsana biological science waa cilmiga lagu barto noolaha iyo wixii la xiriira ayaa lagu bartaa physical science waa cilmiga lagu barto waxyaabaha aan nooleyn ee muuqda laakiin laga helo dunida dacaladeeda lagu arko ayaa lagu bartaa labadaas ay u qaybsamayaa markii la soo aado dugsiga sare maadada physics-ka labadaas ay noqon doonta ayay noqonaysaa haddaba waxaan ka hadlaynaa marka maadaama aan sheegnay science inuu qaybsamo physical science iyo biological science waxaan qaadan doonaa physical science-ka qaybihiisa kala duwan biological science qaybaha caafimaadka iyo dadka barta waxyaabaha noolaha la xiriira ayaa ka hadlaynaa hadda waxaan ka hadlaynaa oo aan sharaxaad ka bixinaynaa physical science-ka markii laga hadlayo guud ahaan afar u qaybsamaya waa maadada chemistry-ga oo lagu barto maadada ahaan loo qaato dugsiga sare iyo maadada physics-ka ee hadda maadada aan sharaxaad ka bixin doono iyo maadada kale iyana lagu magacaabo geology oo lagu barto cilmiga dhulka barashada dhulka iyo wax lamid ah ee la xiriirta iyo qayb kale oo iyana la yiraahdo astrology ee lagu barto cilmiga hawada iyo waxyaabaha hawada hooseeya ayaa lagu bartaa marka usoo laabano qaybteena physics marka usoo laabano qeexitaankiisa iyo aan usoo laabano waxaan sheegnay physics wuxuu qayb ka yahay physical science iyo qayb ka yahay sida qeexitaanka aan ku sheegaynay oo aan ku muujinay wayahay waxaan su'aal la isweydiin karaa marka waxaan su'aal imaan kartaa what is physics wuxuu yahay muxuu soo kordhiyaa waa su'aasha dadka in badan ay isweydiin karaan what is physics and what it is important muxuu yahay physics muhiimadiisu maxay tahay physics qofka hadii uu barto faa'iidooyinka uu ka helayo waxaa kamid ah qofku uu awood u leeyahay waxyaabo fara badan laakiin ugu horreyn waxaan ka bilaabaynaa qeexitaanka what is physics aan kormano physics muxuu yahay physics waa cilmi la xiriira waa qayb science ka mid ah oo la xiriira wuxuu la xiriiraa waxyaabaha dabiiciga ah astaamahooda iyo wuxuu la xiriiraa marxaladda maatarka uu ku sugan yahay iyo tamarta maatarka la fargasho intaas ayuu guud ahaan physics-ka shaqadiisu ay tahay haddii qofka physics uu barto astaamaha maatarka uu leeyahay waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabaha naturalka iyo wax ka yaqaana haddii uu qofka barto marka maadada physics-ka muxuu faa'iidayaa what's important studies waxa lagu daraasayaa maadada physics marka aad barato waxay daraasaad guud ka bixisaa oo ama cilmi guud ay ka siinaysaa formation of shadow hooska hadda muuqaalka hadda inuu ku muuqdo hoos ayaa laga yaabaa aad arkayso ama xitaa marka aad socoto meel qaar inaad ku arkayso hooskaas system uu ku sameysmo ayaa jiro habka uu ku sameysmo hooska oo kale uu ka hadlaa waxyaabaha aad baran karayso haddii aad physics barato ayuu qayb ka yahay
iyo formation of mirage waxa la yiraahdo habka u sameysmo marka aad aragto meelaha aad maris dhan dabagaale habka u sameysmo kale dhan dabagaale waxa la dhahaa marka aad ado meel maraa meel shishe aad ka aragto waxyaabo u muuqda sida inay biyo meel ku jiraan oo kale aad arkaysa waxaas oo kale mirage la dhahaa dhan dabagaale la dhahaa qaabka u sameysmay waxyaabo fara badan oo ku jira in the air ama ku jira hawada guud sameynaya air pressure dhexdiisa waxyaabo ka dhashay sabab ay ku yimaadaan fiiska ayaa lagu bartaa waxa kale sidoo kale ku baran doontaa waxa la mid ah waxyaabo badan oo ka yaabana wondering substance waxyaabo aad ku arkayso oo natural ah sida waxaad ku arki doontaa waxa la yiraahdo rainbow waxa la yiraahdo rainbow waxa la lahaa oo loo yaqaan qansar roobaadka oo xilliyada roobka uu da'ay marka waxa laga yaabaa inaad aragto xariijimo hortaada kaga muuqanaya buluug cagaar iyo kala fara badan isku darsan sida qaansado kale u sameeysan inaad ku aragto laga yaabaa meelaha xilliyada roobka markii la joogo meelaha baadiyaha ama baliyada biyaha ee deegaan marka joogto ayaad arkaysaa qaabka uu sameeysan physics ayaa lagu daraasay lagu bartaa sidoo kale physics-ka waxa uu ka hadlo waxa kamid ah xaasawa hadii aad aragto tusaale oo kale shay ay aragtay meel ka soo dhaca anaga inta badan intaadan cilmiga physics wax ka aqoon waxaan shayga uu soo dhacay laakiin qofka physics yaqaan shayga dhacay wuxuu u baranayaa ama wax ka yaqaana waxyaabaha ay reason-ka uu soo dhacay sabab ayaa jira waxyaabo la yiraahdo gravitational force dhulka ku jiro waxyaabo saas oo kale xiriir ayuu inta badan daraasayaa hadii aad maadaas barto marka macluumaadkaas iyo waxyaabo la mid ah ayaad ku baran doontaa oo intaas ka sii dheer ayaad maadaama ku daraasin kartaa hadda halkan waxaan ku soo gaabinay ama aan ku soo koobnay muxuu yahay macnaha guud ee physics-ka si aan gunaanadii aan u sheego physics waa cilmi lagu barto waxyaabaha dabiiciga ah iyo waxa lagu bartaa matter-ka iyo energy-ga la xiriira ayaa lagu bartaa si la mid ah physics qofka haduu u barto muxuu faa'iidayaa faa'iido uu helaa wuxuu inuu yaqaan waxyaabo fara badan ee aadan waxba ka aqoonin inaad wax ka faa'iido sida ama aad wax ka fahamto sida habka uu sameysmo oo kale hooska oo kale habka u sameysmeen qansar roobaadka oo kale iyo waxyaabo kale oo la xiriira macluumaadkaas sidoo kale waxyaabaha soo dhaca sida hadii aad aragto tusaale kale hadii aad meel beer booqato ama meelaha ay ka baxaan dalagga la beertay ka baxaan waxa laga yaabaa inaad aragto miro bislaaday ee geedka ka soo dhacaya qaabka ay u soo dhacayaan cilmi ayaa ku jira oo aad ku baran doonto physics-ka marka guud ahaan chapter-keena maanta halkaas ayaan kusoo ciwaankeena cashirkeena intaas ayaan kusoo gaabinaynaa chapter-keena dhihin waana sii wadi doonaa ciwaanka cashirada kale taxanayno ahaan doonaan hadii fadlan uu ku qaaday channel-ka subscribe saar gabaleelka furo like na saar waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka billahi tawfiiq